بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا qiimaha la kusoo dhawaada mar kale xalqadani toddobaad ee barnaamijkeena fanno tacaamul maca al-atfal oo aynu uga hadlaynay tarbiyada caruurta iyo barbaarinta wanaagsan xalqadan anigoo ka cudur daaranaya inaan la soo yaradahay insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa inaan ku soo gabangabeeyo ama ay noqoto xalqadii ugu dambeysay marxaladii labaad ama marxalatul xamli oo maadaama aan xalqadan kuwii ka horeeyay xalaqaadkii ka horeeyay aan uga hadlaynay ilmuhu inta ay uurka ku jiraan tarbiyada ay mudan yihiin in xilligaas loo diyaariyo ama loo sameeyo waajibaadka ina saaran iyo xuquuqda ina saaran ay tahay xilligaas ay uurka ku jiraan inaan gudano marka xalqadan ayaan rajaynayaa inay noqoto xalqada ugu dambeysay wixii ka dambeeya waxaynu geli doonaa marxaladii ugu muhiimsaneed oo marxalatu bacda alwilaada ilmuhu marka ay dhashaan daqiiqada koobaad oo marka ay dhashaan laga bilaabo ilaa 21 sano ka gaaraan maraaxisha kala duwan iyo sanadaha kala duwan ee ay marayaan hadba marxalad kasta iyo sanad kasta tarbiyada ay u baahan yihiin sida ay mudan in loola tacaamulo ayaan insha Allah tacaala step by step inta Ilaahay naga garaadsiiyo aan ku qaadan doonaa waxaan rajaynayaa runtii dowraadka ka iman doona ama xalaqaadka ka iman doona marxaladaas dhexdeeda oo aan rajaynayo xalaqaadka ugu badan inay noqon doonaan in wax badan laga faa'iidi doono haddii Ilaahay qadaro intaana badan ka waalid ahaan ilmaha markaynu tarbiyeynayno oo aan korinayno qof kasta waxa uu la jecel yahay ilmihiisa intaana badan marka waxaynu jecelnahay ilmuhu inay noqdaan ahlu diin quraanka waxa ugu horeeya ee ilmaha markii maankooda iyo maskaxdooda la dhisayo aynu يعني la raadino waa quraan dugsi quraan baynu keenaa inagoo marka hamigeena iyo hankeena uu yahay in quraan ilmuhu ay quraanka bartaan inay ahlu diin noqdaan inay quraanka ka agdhawaadaan ku cibaadaystaan ku dhaqmaan walaakiin taasi waa rabitaankeena Soomaaliduna waxay dhahaan waan rabaa rooba lagu waayay bilcagsi ma dhacdo in sidaas aan wax u rabno ay noqotay bilcagsiga dhacdo oo ilmuhu waxa laga yaabaa quraankii la baray xataa inay lumiyaan iska dhaaf inay ku cibaadaystaan oo la noolaadaan oo ahlu quraan ay noqdaan oo ay diinta sii bartaan oo ahlu diin ay noqdaan iska dhaafay quraankii xataa ay barteen in ay lumiyaan laga yaabaa marka hadii aynu mujhar ama microscope u qaadano bal inaynu ogaano sababta keeni karta ilmuhu inay sidaa noqdaan oo quraankii ama diintii lagu la dadaalayo oo aan la jeclayn ay ka haajiraan oo inay bartaan oo ku dadaalaan iska daayay bil cagsi ay lumiyaan intii la baray xataa ay lumiyaan sababta keeni karta inaynu ogaano hadaan isku dayno natiijooyinka inoo soo baxaya waxa kamid ah inaga ka waalid ahaan xataa inaan qayb ku leenahay oo dabcan inaga rabitaankeena ma qasadkeena ma ilmuhu inay sidaa noqdaan laakiin sababa inaga yimid ba keeni karta oo kalifi karta ilmuhu inay sidaa noqdaan maxay tahay marka sababaha inaga iman kara oo keeni kara in ilmuhu ay diinta ama quraanka aysan jeclaan oo ka haajiraan waxa jirta qofka bini aadamka ah wax kasta ee uu sameeyo saddex sababood uu sameeyaa ولا الرابع اللهم مد أفراد إن أجرتنا أنه قرن مايو سدح sababood sababta koobaad qofku hadii uu wax sameeyo wuxuu u sameeyaa yani in shaygan uu yahay daafic ku xambaaray inuu qabto oo jiro oo shaygan qofku markuu qabanayo waa ma'muur waa shay la amray gudasho darteed buu qabanayaa rabitaankiisa uma qabanayo jacaylkiisa uma qabanayo waa shay la amray oo gudanayo oo hadii marka uu san qaban cid uu ka baqayo ama in la ciqaabo uu ka baqayo ama in wuxuu u baahnaa marka uu waayo uu ka baqayo sababu marka uu qabanaya daafic ku xambaaraya jiraasa darteed uu qabanaya shayga sababta labaad ma shayga labaad ee qof kasta ee bini aadam wixii uu qabanayo uu qabto sababta labaad waa in qofka uu hurweyto uu qabto waxaan waa waajib ku saaran waa waxaan adiga xagga ku dhaafayn kuma huraysa ee qaba waa dooqiisa iyo rabitaankiisa laakiin jacaylkiisa maaha oo wax uu ku raaxaysanayo uu rabo maaha waa shay aan hurayn waa wax aan hurayn oo xagga u dhaafayno isagu ilaa inuu qabto ay u taalo marka uu qabanayo kuma raaxaysanayo rabitaankiisana ma ahan cid uu haatan marka ka baqayna ma jirto laakiin oo go'aankiisa uu qabanaya laakiin kuma raaxaysanayo sababta saddexaad waa qofka inuu shaygan u qabto jacayl isagu uu jecel yahay rabitaan isagu uu rabo shaygan inuu qabto oo qabashada shaygaas ay tahay waxa ugu wanaagsan iyo waxa uu ugu jecel yahay inuu qabto marka qof kasta ee bini aadam waxa uu qabanayo saddexdaas sababood buu qabtaa hadaba ilmahan marka ay quraanka baranayaan saddexdaas sababood midee ku xambaarta oo ay quraanka u bartaan marka ay diinta baranayaan marka ay quraanka baranayaan yar yihiin
saddexdaas sababood miday quraanka u bartaan ma cabsi waalidka ay ka cabsanayaan ay quraanka u bartaan oo waalidka dartiis bay u bartaan ama macalinka dugsiga iyo markaas in ay amarka waalidka qaadanayaan dartiis bay quraanka u bartaan ma hurweetay u bartaan oo bulshadu waa barataa oo ilmaha idinkoo kala way bartaan oo quraanka in la bartaa wax iska caadiye bartay u bartaan mise waxay u bartaan jacayl iyo rabitaan iyagu ay jecel yihiin iyo quraanka inay ku macaansadaan oo waxa ugu wanaagsan ugu jecel yihiin oo يعني هوبigooda ah ayaa quraanka ah hadii ay u bartaan amar waalidarteed oo waalidka cabsi ay waalidka ka cabsanayaan ama waalidka tawaqucooda waalidka ayaa jecel quraanka inay bartaan marka rabitaanka waalidka dartoodii u baranayaan hadii ay taaso jirto maalintii ay si kale uga baxsadaan ama si kale waalidka ku qanci karaan ay helaan quraanka halkaas ugu daynayaan hadii hurweyta ay u baranayaan de maalintii ay huri karaan farahay ka qaadayaan halka shay ee quraanku uu ku daa'imi karo ama diintu ay ku daa'imi karto ama canugaas waxa marka uu baranayo uu ku daa'imi karo waa jacaylkiisa iyo rabitaankiisa iyo asagu inuu shayga ku macaansado oo uu jecel yahay oo uu hobbigiisa noqdo sidee marka su'aashu waxay tahay sideen ilmaheena inaga ka waalid ahaan waxa ina saaran inaan ilmaha gaarsiino shaygan inuu ku raaxaysto oo isagu ku macaansado daan doonayno ilmuhu inay quraanka jeclaadaan oo quraanka ku cibaadeysan ahlu quraan noqdaan waa inaan gaarsiinaa inay quraanka jeclaadaan oo inaan gaarsiinaa inuu quraanku hobbigooda noqdo waxa ugu wanaagsan oo ugu jecel yihiin inay akhriyaan ama ay bartaan inuu quraanka noqdo su'aashu marka waxay tahay sideen ku gaarsiin karnaa ama aan ilmaheena ku jeclaysiin karnaa quraanka bal aynu u laabano marxaladii aan ku jirnay ee marxalatul hamli maxaa kaga aadan waajibaadka ina saaran xilliga ilmuhu ay uurka ku jiraan ee ay tahay in aan ilmaheena quraanka iyo diinta ku jeclaysiino maxay tahay hadii aad doonayso ilmahaagu inay ahlu diin ahlu khayr diinta jecel quraanka jecel ay noqdaan laabudda marka aad uur leedahay labadan caado inaad samaysato caadada koobaad waa inaad yeelato raatib quraani ah oo adigana cibaado ku noqdo ilmahaagana tarbiyo u noqdo raatib quraani oo adigu akhrisato iyo caadada labaad oo inaad quraanka dhageysato labadaas caado wax dhib lama ahan wax ku dhibay ma waqti ka luminaya ma ahan laakiin saameyntu waxay ka imaanaysaa qaabka labadaas aad u sameeyso marka sideed quraanka u akhrinaysaa marka aad quraanka adigu akhrisanayso waxa la yiraahdaa wax shardi ah adigu horta inaad codkaaga ku akhriso midda koobaad inaad adigu akhrisato codkaaga ku akhrisato ayaa ka saameyn badan inaad dhageysato codkaaga inaad ku akhrisana wuxuu sii saameyn badan yahay marka aad adigu codkaaga ugu macaan sida ugu macaan ugu quruxda badan aad u akhri karto aad u akhriso waqti meel degan iyo waqtiga ugu munaasabsan ee aad adigu quraanka ku raaxaysan kartana aad akhriso yani bacda salaat subh iyo kale bacda salaat al-isha iyo kale xilli jawi degan oo adigu aad quraanka dareento sidee marka canugaaga adigu sidaas quraanka u akhrinaya sidee canugaaga quraanka u jeclaanaya sidee ugu beermaysaa dareenka in quraanka u jeclaado afar sababood oo isbiirsatay baa keentay in canugu markaas uu quraanka jeclaado midda koobaad adiga codkan yeeraya ee quraanka akhrinaya ee uu canugu maqlayo waa codka uu ugu maqal badan yahay waa codka uu ugu aqoon u yahay codadka uu maqlo inta codadka uu maqlo uu deegaanka ka maqlo codka ugu badan uu maqlo waa codka uu heshado waa codka hooyo oo markasta uu maqlo sadarteed in canuga attentionkiisa soo jeesto kula socdo ayaa dhalanaysa maadaama codkan yeerayo uu yahay cod uu garanayo codka uu heshado sida gaarka uu maaragtaanay markasta cilaaqada ula leh maadaama uu codkan yahay aad uu la soconaya second hadana codkan yeeraya oo codkii hooye ah ee uu hesho jiray ah wixii uu ku aqoon jiray wax ka duwan buu ku hadlaya taasina waxay keenaysaa in wacyiga canuga iyo attentionkiisa uu soo jeesto oo wixii uu ku yaqaanay asagoo iska hadlayo si kale oo hadlayo uu arki jiray laakiin waxaan uu akhrinayo waxaan codkan qaabkan uu u dhawaaqay qaab uu u dhawaaqi jiray ma taasina waxay keenaysaa in uu si gaar ah ula socdo midda saddexaad marka quraanka adigu aad akhrinayso hadaad cod macaan ku akhrinayso ku raaxaysanayso adigu cod ka macaan hadana cod macaan oo lagu raaxaysto wixii markii ay yihiin canugu wuxuu yani aad ula dhig raacaya oo ku raaxaysanaya midda afraad markaad adigu cod macaan ku akhrinayso quraanka aad ku tadabburayso oo tadabbur iyo tartiil quraanka u akhrinayso oo hadana quraan aad yani macnihiisa taqaan oo kale aad garanayso kale uu yahay
adiga laftigaagu waxa dareemaysaa yani shawq iyo quraanka inaad aad u macaansato ku dhadhansato marka ladadaas iyo dhadhankaas adigu aad dareemayso xanugaagu dareemaya xanugaagu wax allaala iyo shucuurka adigu aad dareento dhan uu dareemaa weydiiyo dadka aan dhaqaatiirta aan urjiifkii waxa aad ku yaqaanaan wax kasta ee adigu aad dareento xanugaagu hadaad cabsi dareento xanugaagu dareemaya waa part of your body jirkaagu kamid yahay marka hadaad cabsi dareento hadaad farxad dareento uu kala dareemaya marka afartaas sababood isbiirsatay inuu codkaaga aad u garanayo oo codkaaga inuu aad la socdo ay dhalanayso laba waxa aad akhrinayso inuu wax duwan oo difference ay yihiin oo sida darteed uu aad ugu dhagraaraciyo cod macaan inuu maqlayo oo waxa uu maqlayo cod aad u macaan uu yahay oo codkii hooyo oo si yani different town ah oo u maqlayo iyo mid afraad oo ah adiga laftaada dareenkaagu inuu canugaaga ugu gudbo afartaas sababood waxay keenaysaa waxa ugu macaan ee uu canugaas maqlo uu ku raaxaysto inay quraanka noqoto oo markastana in sidaas loo dhageysiyo oo sidaas loo u maqlo uu jeclaado marka waa laga marmaan hooyo kasta ee uur leh inay caadadaas samaysato oo raatibka quraaniga samaysato iyadoo qaabka u akhrinayso dabcan in caadi iskaga akhrisato oo jis quraan maalin kasta ka kacdo ama aad hal jalaad ka kacdo isaga inaysan saameynaa laga yaabaa adiga cibaado way ku noqon laakiin isaga inaysan saameyn isaga qaabka quraanka u saameynayo waa qaabkaas aan sheegay in loo akhriyo oo qaab tadabbur iyo tartiira loo akhriyo cod macaan lagu akhriyo jawi degan oo aan buuq iyo qaylo kale lahayn lagu akhriyo laakiin inta badan jawigaas iyo qaabkaas lama helayo oo qof kasta mashquulka iyo mashaakilka iska haysta hooyada guri joogtana inaysan jaaniskaaba helina baa dhacda waqti hal waqti ama laba waqti maahan inta kale ay si kale u mashquusho waqtiyada kale marka ee aad si kale aad inaad quraanka dhageysato ay ku saamaxayso waxa laga marmaan sidoo kale in caadada labaad samayso oo ah inaad quraanka dhageysato marka dhageysiga inaad quraanka iska dhageysato waqtiga aad nasanayso kale oo nasiinada ku jirto marka aad jiifanayso kale marka aad shaqo ku jirto in ku saamaxayso inaad quraan dhageysato inaad dhageysataa dabcan iyadu uma baahna waqti iyo maaragtaanay munaasabad gaar ah iyadu waqti kasta dhageysan kartaa laakiin qaabka loo dhageysanayo ayaa ah muhiimada yani meesha ta'athirku ka dhalanayo inaad sheekh mar inta iska soo qaadato iska dhageysato quraanka iska dhageysato oo muhiimadu ma ahane ta'athirku meesha uu ka dhalanayo ilmuhu yani keenaysa in ilmuhu quraanka ay jeclaadaan oo jacaylka meesha beeri karaysaa waa qaabka loo dhageysanayo marka qaabka loo dhageysanayo iyo xataa culimo u tarbiya ay shuruudo ay u xiraan marka quraanka la dhageysanayo ama aad quraanka dhageysanayso hooyada uur kale quraanka dhageysanayso waxa laga maarmaan ah la yiraahdaa koow sheekh hal sheekh horta inay ka dhageysato oo hal qaari quraanka ay ka dhageysato yani 10 qaari ama 5 qaari ama 4 qaari inay midba mar dhageysato waxa ka fiican inay hal qaari dhageysato oo ka saameey ilmaha sababtoo ah maskaxda yar hadda koraysa maskaxda yar aan wax badan qaba karin maqal kala duwan yani fikirro kala duwan ay keenay inuu si siyaabo kala duwan u fikiro oo hadba wax uu maqlo marka ilmuhu waxa uu la qabso og yahay oo inuu markasta dhigta la raaco uu keeni karayso waa inaad hal sheekh dhageysato markaas hal sheekh maqlo oo sida uu codkaaga u bartay oo kale sheekh uu barto aad markasta u daarto sheekhaas laftiisa waxa la yiraahdaa waxa aad u fiican culimada xoogaa makharijul xuruufkooda uu aad u bayaansan yahay oo aad loo fahmi karo oo culimadu iyagoo dabcan quraa'ooda ah ay hadana qaabka xarafkaas carabka looga soo saarayo maqribkiisa looga soo saarayo aad ugu kala ay bayaan og yihiin marka culimada ugu cad oo makharijul xuruufkooda aadka u cad yahay culimadaas in laga dhigeysa ayaa fiican la yiraahdaa waxa kamid ah شيخ محمود خليل الحسري أو قال رحمه الله شيخي رامسر iyo Sheikh Maxamed Sidiq Al-Manshawi waliba waxa si faa'iqsan la yiraahdo Sheikh Maxamed Sidiq Al-Manshawi sababtoo ah la yiraahdo kayfiyada quraanka uu duubo sheekhaas ayaa waxay tahay kayfiyo aad moodo inuu ugu talagalay in laga meersado oo qofkii raba inuu ka meersado xataa uu saamaxay inuu ka meersado qaabka uu akhriyay inta uu hal mar akhrinayo markuu duubayo aad moodo inuu ugu talagalay in laga meersado xataa waad aragtaan iyada canug yar uu ka meersanayo oo codkiisii oo la yareeyo canug yar laga dhigay ayaa la daba dhigay marka canug yar oo ka meersanaya amalad moodaa waxa laga qaarin u maleeyaan inuu canug yar oo ka meersanaya yahay dabcan ma ahan waa codkiisii oo la yareeyay sheekha oo codkiisii la yareeyay oo la daba dhigay codkiisii kale marka labadaas caado aan isleeyahay ma dhib badna qofkii doonaya ilmihiisu inay noqdaan ilmo wanaagsan oo ahlu khayr oo ahlu diin ah labadaas caado daa'imto ayaa keeni karta ilmahaagu inay noloshooda dhan noorto
oo noloshooda adduunyo mideeda aakhiro dhan ilmo ahlu diina oo ahlu khayr oo adduunkana ku raaxaysta adduunkana kulli baana aakhirana kulli baana ay noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga dhigo ku quraanka lagu dilo laguna soo saaro intaas ayaan ku soo koobay casharkan asallallahu ta'ala an yaj'alana hadha liqa fi mizan hasanatina ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh